madaxweynaha Sheekh Maxamuud haddii aan ogaan lahayn lacag laga soo qaato waa weydiisan lahaa waa ka soo qaadan lahaa laakiin wax lacag oo aan ka soo qaatay hab yaraatee ma jirto waxaan ku waayay shaqadeedii waliba tuhun inaad lacag dhacday ama lacag inta soo qaadata aqarsatay waa wax aad loogu xumaado runtii aniga ismaan ahaan waxa laga yaabaa inaad warbaahinta ku aragteen dhacdo aniga laga qoray oo Wariye Abdixaafid uu soo qoray markii ugu horeysay xaqiiqdii waa dhacdo dhab ah oo dhacday 22kii bishii hore November waxaan muuqaal ka soo duubay gabar arday oo yar oo Aisha Sheekh Abdulwaahid lagu magacaabo maadaama aan wariye ahay waxaan u gartay gabadhaas muuqaalkeeda haddii uu baaho maadaama si shucuur leh u hadlaysay haddii la faafiyo uu baaho in la daawan doono lagana falcelin doono sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan gabadhii hataa contact ka reebo oo aan yiraahdo haddii lacala laga soo falceliyo uun kula soo xiriiri doonaa kadib maalnimadii muuqaalku baahay sabtii ahayd sabtidii isla galabteedii iyo adiga galabkii ilaa maqribkii inta u dhaxaysa waxaan xiriir ka helay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo la soo xiriiray iyo wiil kale oo ay dalbanayso Goodgeesi lagu magacaabo isagana TikToker caana dabcan markay la soo xiriireen oo aan arintii u sheegay gabadhiina aan u sheegay in contactigeeda hayo waxaan noqday markii isku xirihii madaxtooyada iyo sidoo kale Aisha oo gabadh yar ahayd waxyaabaha marka cajiibka waxay ahayd waxaan balmiyay maalin Isniina oo inaga baaqtay Talaado sidoo kale maalin Sabti balantay ahayd oo aan u tagnay madaxweynaha iyo guriga dalka looga rimay fila Soomaaliyaba markaan meeshii tagnay kaamira lama ogoleen oo aan ahayn tan madaxtooyada annaga waxaan dalbanay ka TV-ga waaga u shaqeynayay in aan helno kaamira gaar ah oo aan ku soo duubano laakiin waa la diiday oo waxay dhaheen anaga soo duubeen idin soo direen aniga madaxweynaha u tagay sawir la soo galay saa aragteenba Aisha iyo tiimkii markaa meesha joogay gabar yar oo iyadana madaxweynaha maalinkaas ubax guddoonsiisay iyadana meesha joogtay oo iyadana markaas rajaale inay aan filaayo oo dugsiga dhexe ahayd sawirka madaxweynaha la soo galay kadib markaan soo laabtay oo shaqadeedii ku soo laabtay oo gabadhiina maalinka farxadeeda ay cabirtay aan wareysi kale ka sii qaaday wixii maalinka ka dambeeyay waxaan cadaadis kala kulmay dhanka maamulkayga shaqada iyagoo markaa igu cadaadinaya inay jirto lacag aan soo qaatay oo madaxweynaha ka soo qaatay haddaan lacag soo qaadan lahaa hataa waxbay ahaan lahayd oo wax garay ahaan lahayd in lagu qabsado maadaama la ogyahaba inta badan TV-da qaar in agaasimayaashoodu lacagaha ay wariyaasha marka qaar ay meelaha qaar ka soo qaataan inay weydiiyaan anoo lacag soo qaadan baa lagu yiri lacag baa soo qaadatay lacagta soo qaadatay wax naga sii markaan yiri wax lacag ma soo qaadan oo lagu yiri lacag waa soo qaadatay oo waxa ii sheegay tiimka filada ugu yaraan hataa lacag ma rabay qiro inaan lacag soo qaadatay yani lacag aniga aan soo qaatay ama aan soo qaadanay iraahdee inaan qirto oo kadib lagu yiraahdo waa soo qaadatay keen ba horta aan ka cariray waxaan yiri wax lacag aan soo qaatay ma jirto haddana waa cadeynaya madaxweynaha Sheekh Maxamuud haddii aan ogaan lahayn lacag laga soo qaato waa weydiisan lahaa waa ka soo qaadan lahaa laakiin wax lacag oo aan ka soo qaatay hab yaraatee ma jirto dabcan muran ka soo bilowday arrinkaas waxaan ku waayay shaqadeedii in shaqo laga tago maamul iyo adiga iyo shaqaalana isku dhacaan waa wax aad iyo dabiici ah dhaca balse in wax sharafkaaga dhaawacaya dhibaato adiga ku geysanaya mustaqbalkaaga saxaafadeed laga yaabo inay dhaawacdo in lagu geysto waa wax aad u dhib badan waliba tuhun inaad lacag dhacday ama lacag inta soo qaadata aqarsatay waa wax aad loogu xumaado runtii anigana aad ugu xumahay ma rabin inaan ka hadlo balse maalintan isku soo aaday iyo hadalkii si darteeda aan ugu hadlay waxyaabo badan oo markaad barnaamij noocaas ka hadlaysa la fiiriyaa jiro aan aad u qiimeeyay oo sababta ugu gaabsaday oo qoraalka loogu soo koobay ahayd